bal ila dhageyso qof walba oo maanta xumaan faafinayo qisadan ayaa waxay tahay wiil muslim ah oo iska dhalinyarada kamid ah ayaa wuxuu aad iyo aad ugu takhasusay internetka marka wuxuu soo saari jiray sawiranta xunxun wuxuu xiriir aad iyo aad u la yeeshay shirkadahan sawiranta xun faafiya saaxiibadii markii uu la fadhiistay way weydiin jireen xageeba ka keentay sawiradan yani ma inoo soo dirtid noo sheeg website-keebaad ka soo qaadataa ilaa oo aakhirkii dambe uu ku yiri lacagta iska keena aniga ayaana emailkiina idigu soo dirayo mid walba wuxuu siiyay emailkiisa emailka saaxiibkii emailka walaalkii bas wiilkii shirkadii ayuu la heshiiyay lacagtii ayuu contract kula galay dabadeedna emailadii dadkii uu ka qorqoray ayuu automatic ugu program garay halkaasoo wixii asiga u soo dhaca ay automatic u aadayiin inta email oo loo soo qoray saaxiibadii markuu la soo fadhiistay way la sheekaysan jireen ma sha Allah hada wiigan sawiranta xunxun aad ay u fiicnaayeen dadkii de wadada iska qaafilsan 6 bilood markuu saas ku waday ayuu shil baabuur ku dhintay wiilkii shil baabuur ayuu ku dhintay wala soo duugay wala uu soo kala tagay meeshii saaxiibkii oo qishada ka sheekeynaya wuxuu dhahay isbuuci oo dhintay markii uu dhintay kadib ayaa waxa ii soo dhaceen message kaas oo asiga ii soo diray oo sawiradii xun ah markaas ayaan wuxuu yiri waxaan is yiri maya message-kan mar hore ayuu soo diray laga yaabaa adi ayaana telefoonka furin waan iska dileed ayuu yiri waxa ahaayeen sawiran qurun ah oo kuwii hore camal bas wiigi labaad ayaa haddana waxa ii soo dhacay sawiran kale cusub oo xumaan ah markaas ayaan waxaan ogaaday ayuu yiri in uu sawiranta automatic uu emailada ugu xiray qabriga asiga oo ku jiro ayuu xumaan soo diray subhanallah ogaa qof walba wixii xumaan oo ka tagto wali uu ku sii soconayaan waxaan wacnay ayuu yiri shirkadii oo contractiga la galay waxayna yiraahdeen buu yiri nasiye passwordkii ama kelmadii sirta ahayd ee aad contractiga nagu la gashay hadii uu qofkan dhintay aad run sheegaysaan waxaan niri wuu yiri ma naqaano qofkii uu dhintay kelmadii passwordkana ma naqaano way diideen buu yiri waxayna yiraahdeen waxa u haray 4 sano iyo bar la ilaaha illa allah asiga oo qabrigiisa ku jiro ayuu xumaantii sii faafinaya maxaan ula jeedaa taas qof walba oo maanta xumaan faafinaya ama YouTube ka ahaato ama Facebook ama internetka meelaha kale ha ahaato ogaaw hadii aad caawa dhimato cidna intii YouTube ka gasho ku dileed gareemayso xumaanta aad faafisay cidna intii Facebook ka tagto waxa xumaan aad faafisay cid tirtiraysa ma jirto wax walba aad shaqaysatani maalinta qiyaama kitaabkaaga ayuun baad ka helaysaa Allah subhanahu wa ta'ala marka uu yiraahdo اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بل كلا فر كتابك وآخرسو اسحكن أذيك هلكا مالك بدو قادونتا سيد الدراديد